بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن داوديال كوسو دوادا برنامجka xogta wararka galmudug TV qodobada barnaamijkeena aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqon doona dawlad goboleedka galmudug ayaa wada didaalo kor loogu qaadayo wax soo saarka dalagyada beeraha ee deegaanada dawlad goboleedka galmudug waxa kale oo daawadayaal barnaamijkeena aad ku daawan doontaan mas'uuliyiin ka tirsan dawlad goboleedka galmudug ayaa ka qayb galay munaasabad lagu soo xirayay toddobaadka dhaqanka ee jaamacadda Gaalkacyo qodobada kale ee barnaamijkeena aan idinku haynana waxa ka mid noqon doona madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kulan gaar ah la qaatay guddiga ardada jaamacadaha ee magaalada Muqdisho qodobadaas iyo kuwa kale ay ka mid yihiin wasiirka dastuurka ee dawladda federaalka Soomaaliya oo kulan la qaatay guddiyada heer qaran ee qaabilsan arrimaha dib u eegista dastuurka ayaad barnaamijkeena ku daawan doontaan Axmed Cumar ayaa soo saaray oo Maxamed Cabduqaadir Silfaan waan la socodsiin doonaa oo diyaar garooba mar kale iyo xogteena waa hagaag daawadayaal imikaana godogalon qodobada xogta aad ku daawateen oo faahfaahsan dawlad goboleedka galmudug ayaa wada didaalo kor loogu qaadayo wax soo saarka beeraha ee deegaanada dawlad goboleedka galmudug Dr. Cali Ducaale oo ah qabiir dhanka beeraha ah ayaa ka hadlay horumarka deegaanada galmudug ka socda ee lagu soo saarayo dalagyada beeraha bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan joognaa hadda waa magaalada Dhuusamareeb beerta aanu dhex taaganayna waa Daardheer farm ma sha Allah maanta waxaanu ku soo booqanay inaanu bal indhayno aan aragno indhahayaga aan ku aragno horumarka Galmudug State ay ka gaartay haminaysana in ay dhinaca beeraha u soo jeesato taa oo ay u sahashay dhulka biyaha ah oo u dhow oo wabiyaba aad isleedahay 10 mitir meelaha qaarkood laga yaabo markaad gaartidba in aad biyihii gaaraysid marka waa mahad alle in ay dadkii reer state-ka ay u soo jeestaan inay beerahooda hormariyaan waxaa nala jooga wasiirkii beeraha iyo xoolaha aragtida beeraha waxa ay ka qabteen iyo sida ay u kordhayso oo galmudug oo lagu ogaa inay hilib iyo caano tahay maanta ma waxba iska bedelay beerahooda horumarka ay gaareen maxaa ka mid ah dhibaatooyinka haysta oo ay nala wadaagayaan hadda beertan aan dhex joognaa waa galley laakiin ilaa 10 hektar oo waxa abuuran ama beeran qudrad ah qudradda qudaarta oo awal hiiraan iyo ka shisha looga keeni jiray maanta waxaan ognahay in ay ku filnaanayso kana badan doonto aakhirka in ay iyagu isaga filnaadaan dhinaca qudaarta Galmudug State waxay caan ku ahayd waxa la oran jiray waa cowpea belt oo digiraha kaliya ayaa caan ku ahayd inay ku baxaan laakiin maanta way dhaaftay geed mirood baa ka baxa waxa ka baxaya qudaar kala duwan tartiib ayay u socotaa taasna waxa dhaliyay nabadda ka jirta iyo aqoon-yahanadeedii oo u soo noqday ogaadayna waxa la isugu imaan doonaa inay tahay dhul beer qaar ka mid ah beeralayda deegaanada dawlad goboleedka galmudug ayaa ku dhiiraday in ay beeraha dalagya ku beeraan isla markaasna tijaabiye wax soo saarka beeraha ee deegaanada dawlad goboleedka galmudug deegaanada ay ku sugan yihiin beeray liima dhanaan cambe zaytuun canuuni geeda kale oo dalag yar oo badan siligi markaan beertan ku wareejiyay iyo tiirarkii kadib ayaan hadda waxaan u soo laabtay in aan abuurkii geed miroodka badiyo sanad ayaan joognaa hadda wax badan oo aanan annagu xitaa filayn ayaan ku aragnay oo ka wanaagsan sidaan filaynay expectationkeena alxamdulillah hadda wax badan oo noo muuqda laga yaabo inaysan marka hore aysan ii muuqan maxamuud yaasiin cartan oo ah agaasimaha wasaaradda beeraha ee dawladda federaalka Soomaaliya
ayaa ballan qaaday in ay qeybtooda ka qaadan doonaan sidii loo horumarin lahaa wax soo saarka beeraha ee deegaanada dowlad goboleedka Galmudug. Anigu ku hadlayo magaca wasaaradda beeraha ee dowladda federaalka Soomaaliya oo ugu horeeyo wasiirka beeraha federaalka ee mudane Saciid Xuseen Ciid. waxaan runtii diyaar u nahay inaan kaashano la shaqeyno dhammaan dowlad goboleedyada gaar ahaan dowlad goboleedka Galmudug oo runtii aad magaraysaa isaga xil saaray sidii wax soo saarka beeraha ay horumarin lahaayeen. Maxamuud Yaasiin Cartan oo ah agaasimaha waaxda sugnaanta cuntada ee wasaaradda beeraha ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ballan qaaday in wasaaraddu ay ka qayb qaadan doonto sidii loo horumarin lahaa wax soo saarka beeraha ee deegaanada dowlad goboleedka Galmudug. waxyaabaha muhiimka ah in laga qabto ay mudan tahay waxa ay tahay in la siiyo qalabkii farsamada oo ay ku shaqayn lahaayeen, in la siiyo lagu taageero abuurkii, cilmi baaris lagu sameeyo. waxyaabaha dhibka ugu weyn ku halkan hadda waxaan taaganahay qaybtan galneyda ah ayaan taaganahay. waxa dhibka ugu weyn ku haya waa bahalkan la yiraahdo cayayaanka, gaar ahaan bahalkan la yiraahdo hangoolaha la yiraahdo madax hangoolaha la yiraahdo fall armywormka ay dadka ay ka cabanayaan arkaysaan qayb kamida beerta inuu hadda cunay oo ay qalalan tahay arkaysaan. waxaan rajaynaynaa marka taana in garab laga siiyo. waa hagaag daawadayaal weli barnaamijka xogta wararka Galmudug TV ayaa daawanaysaan. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kulan gaar ah Muqdisho kula qaatay qaar ka mid ah guddiga ardayda jaamacadaha ee magaalada Muqdisho. kulanka oo la qaatay guddiga jaamacadda ee magaalada Muqdisho ardayda ku dhaqan ayuu madaxweynuhu ku dhiirigeliyay heerka waxbarasho ee isbeddelka horumarineed sameynaya, isagoo ballan qaaday in dowladdiisu ay ka shaqeyn doonto sidii loo garab istaagi lahaa dhalinyarada iminka wax ku baranaysa gudaha dalka. anigu waxaan siin karaa maapkii qaridadii yaan siin karaa, road mapkii yaan siin karaa, laakiin xoogkii waa idinka. xoogii rabay bacdama idinka inay fursad u helin inay heshaan iskool lacag la'aan ah, inaydan fursad u helin jidad wanaagsan oo nadiif ah oon jajabnayn, inaydan fursad u helin Soomaaliya oo sharaf iyo xurmad adduunka ku leh, aydan fursad u helin adduunka oo dhan intay yimaadaan tourism dalxiis u yimaadaan oo ay daawadaan Soomaaliya ma garateen, aydan fursad u helin ciidan xoog leh oo lagu tilmaamo libaaxyada Afrika oo ciidanka ugu xoog badan ah, aydan fursad u helin dad qab leh oo Soomaalinimadu ay sarreyso oo aaminsan in uu ka wada wanaagsan yahay adduunyada inta kale waa laga wanaagsan. meesha hadda qabkii uu jabay oo qof walba hadda wuxuu leeyahay our international community wuxuu fiirinayaa qof kale inuu wax u qabto. meeshaas waxaa maqan doorkiina maqan, marka doorka dhalinyarada ayaa maqan. waa laga yaabi karay sidaa sheegteen inaysan jirin dowlad idin dhiirigelisa, laakiin hadda waa haystaan dowlad idin dhiirigelisa. 20 sano soo socota burburkaan inaad ku jirtaan idinka. 20 sano soo socota carruuraha dhashaan meesha aad soo marteen iyo meel ka daran oo ka dhib badan inay maraan, iyo hadda inaad u istaagtaan dalkan dadaa u dhinto, dhallinyaraa u dhimatay oo xabsiyo u gashay, in qaarkii ay nafta u waayaan si wadaniyadda loo xoojiyo, si qaranimada loo xoojiyo, si inta badan oo badbaadaan. ma maqlaysaan? annaga generationkeena dadkii hadda inta fadhiya oo dowladnimadii ka soo faa'iiday waxaa loo faa'iideeyey oo la siiyey fursaddaas dhalinyaro idinkoo kale ah oo idinka aqoon yar oo Israel la oran jiray yaa la siisay. qaar ka mid ah ardayda kulanka la qaadatay madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa iyaguna goobta ka hadlay. maanta waxaan qabanay kulan weyne ay soo qaban qaabiyeen midowga ardayda qaranka Soomaaliyeed oo aan kula qaadanaynay madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. kulanka waxaa ka soo qayb galay 55 jaamacadood gudoomiyaashooda iyo xubno kale oo ka tirsan ardayda qaranka Soomaaliyeed. madaxweynuhu kelimad qurux badan oo dhiirigelin iyo wadaniyad ah ayuu noo soo jeediyey, waxaana uu nooga sheekeeyey halka horumarka dowladnimo maraya halka la tigsanayo. wuxuu nagula dardaarmay sidii aan uga shaqeyn lahayn horumarka mustaqbalka iyaga iyo ka carruurtayada.
madaxweynaha ardayda qaranka Soomaaliyeed ayaa u soo jeediyeen presentation ama waxa weeye cashir ku saabsan waxqabadka ardayda qaranka Soomaaliyeed iyo sida ardayda jaamacadaha dalka iyo kuwa dugsiyada sare ee dalka ka jira ay u wada shaqeeyaan waan ku faraxsanahay inaan maanta kulanka madaxweynaha la qaadano iyo gaar ahaan madaxtooyada aan nimaadno waxaan ka mid ahay ardayda ku nool magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya oo ku faraxsanahay maanta inaan ka soo qayb galo midowga ardayda Soomaaliyeed maanta shirkoodii qiimaha badnaa waxaan u mahadcelinayaa dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo maanta nagala qayb qaatay barnaamijkani aadka quruxda badan oo aadka u qiimaha badan run ahaantii intuu hadalka waday madaxweyne Farmaajo waan ilmeeyay waxaan ku ilmeeyay sabab oo ah waxaan dareemay inaan ahay ardayad Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho waxaan dareemay inaan haysto qof dhiirigeliya waxa dhiirigeliya aabo hooyo waalidiin iyo walaalo sidoo kale waxaan helay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya si uu igu dhiirigeliyo waxay ii noqonaysaa farxad inaan si laba jibaaro waxbarashadeedii heerkeygii aqooneed inaan si laba jibaaro mudane madaxweyne meel walba aad joogto aad baad u mahadsan tahay waa hagaag daawadayaal guud ahaana inta ayaanu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeena xogta wararka galmudug TV intaan ku kulmi doono barnaamijkeena kiisa xiga sidaa iyo nabadgelyo